xalqadii hore waxaynu uga soo sheekaynay reer caad iyo nebigii loo diray ee nebi huud. haddaba waxaa jiray in reer caad uu deegaankoodu ku dhowaa reer la odhan jiray iyaguna reer thamuud oo ay xigto ahaayeen reer thamuud. sida reer caad waxay uga ekaayeen xagga muuqaalka iyo xoogga, sidoo kalena waxay iyaguna caabudi jireen asnaamta, kumana cibro qaadan halaaggii ku dhacay reer caad. haddaba xalqaddeennan maanta ayaynu ku dul istaagi doonnaa sheekada reer thamuud iyo nebigii loo soo diray ee nebi saalax calayhi salaam. alle subxaanahu wa tacaala ayaa reer thamuud u diray walaalkood saalax oo nasab ahaan iyaga ka dhashay. nebi saalax calayhi salaam wuxuu ka mid yahay durriyaddii iyo faracii nebi nuux, sida ibnu katiir ku sheegay kitaabkiisa qisooyinka nebiyada. abtirsiga nebi saalax waxa uu noqonayaa saalax ibnu cubayd ibnu aasifa ibnu maasikha ibnu cubayd ibnu jaadir bin thamuud ibnu jaathir ibnu iram ibnu saam ibnu nuux calayhi salaam. waxa uu ka dhashay reer thamuud oo dhalasho ahaan qaraabo dhow la ahaa reer caad. nebi saalax intii aan la soo dirin ka hor waxa uu ahaa qof dadkiisa dhexdooda ku leh sharaf, nin xikmad badan oo ay aad u jecel yihiin, qoys laga haybaystana waa uu ka dhashay. magaca nebi saalax 9 jeer ayuu alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku sheegay. qisada reerkiisana dhowr jeer ayuu qur-aanku uga warramay si gaaban iyo si faahfaahsanba. reer thamuud ayaa waxay ku noolaayeen deegaan lagu magacaabo alxijir oo ku yaala waqooyiga dalka boqortooyada sacuudiga, waxayna u dhexaysaa labada magaalo ee madiina iyo tabuuk. deegaanka reerkan waxa uu ahaa mid leh dooxooyin barwaaqo ah iyo waadiye biyo badan, kuwaasi oo aysan biyuhu ka go'i jirin. maadaama ay dhalasho ahaan isxigeen reer caad, waxay xagga xoogga iyo dherarka u dhowaayeen reer caad. waxay ahaayeen dad uu alle u hibeeyey quwad iyo liixaad. waxay u telin jireen qabaa'il badan oo deegaanka kula dhaqanaa. magaalo madax waxa uu ahayd degmo lagu magacaabo madaa'in, barwaaqo iyo berisamaad ayay ku noolaayeen. waxaa u dheeraa ilbaxnimo ku salaysan aqoon iyo farsamo ay heleen oo ay nolosha u kaashanayeen. waxay ahaayeen qabiil carab ah oo xadaarad fog leh. reer thamuud waxay xirfad u lahaayeen dhisidda guryaha. waxay buuraha ka dhex dhisi jireen daaro dhaadheer. awooddooda jir ahaaneed ayaa u suurtagelin jirtay inay dhagaxyada buuraha qodaan kadibna guryo ka dhex sameeyaan. dhismaha guryahaasi dhinaca waxay ka yihiin buurihii ay ka naqshadeeyeen, dhinaca kalena waxay ka yihiin aqallo qurux badan oo dhismahooda si wanaagsan loo farshaxameeyey. qur-aanka marka lagu tilmaamayo guryahaasi, ereyga loo adeegsaday wuxuu yahay naxti oo noqonaysa soomaaliye ahaan farshaxan. guryo kale oo ereygaasi la raacshay qur-aanka laguma sheegin. reer thamuud kuma mahadnaqin nimcadan iyo awooddan alle ku manaystay. kibir ayay ka qaadeen. waxay ahaayeen kuwo aad u dulmi badan. arrinta ugu sii daran ayaana ahayd in sidii reer caad ay la yimaadeen shirki. dhagaxyada ayay asnaam ka qoran jireen si ay u caabudaan, kaalmana u weydiistaan. alle subxaanahu wa tacaala oo sifooyinkiisa ay ka mid tahay inuusan dulmin addoomihiisa inta uusan qoom halaaginna u diro qof iyaga ka mida si uu u gaadhsiiyo fariinta xaqa ah, ayaa nebi saalax calayhi salaam u doortay inuu fariinta alle gaadhsiiyo qoomkiisa. ibnu kathiir oo sharaxaya aayadda 73 ee suuradda acraaf ayaa yidhi waxay mufasiriintu isku raaceen inay reer thamuud oo maalin ku shiraya goobtooda shirarka uu halkaasi ugu yimid rasuulkii uu alle u soo diray ee saalax calayhi salaam. wuxuu ugu yeeray inay ilaahay oo keliya caabudaan, ka dheeraadaan shirkiga iyo asnaamta. reer thamuud oo sidii reer caad ahaa dad aad u kibir badan ayaa jees-jees iyo aflagaado markiiba ku bilaabay nebi saalax. waxay yidhaahdeen waxaad tahay qof waalan oo sixran. nebi saalax kama quusan inuu dacwadda reerkiisa la dhex taagnaado. wakhti kasta waxa uu xasuusin jiray wixii qabsaday reer caad oo ehel iyo xigaalba la ahaa, sheekadoodana ay maqleen. waxa uu xusuusiyey in alle subxaanahu wa tacaala uusan ka jeclayn reer caad. haddii ay shirkiga ku sii jiraanna ay mari doonaan isla jidkii halaagga ee reer caad la marsiiyey. waxa uu ula tegey dhambaal uu dhinaca alle subxaanahu wa tacaala uga waday. waxaa loogu sheegay caqiidada hagaagsan iyo hannaanka nolosha ee habboon, balse in yar mooyaane intii badnayd waa ay diideen warkiisa. nebi saalaxna waxay si bareer ah
ugu dhaheen dhexdeenna waxa ka tahay dayro iyo mid la nacay. markii ay ka quusteen in ay nebi saalax ka hor istaagaan farriintii uu soo gudbinayey, ayay madaxweyntii reer Thamuud ku tashadeen inay xujeeyaan saalax calayhi salaam. waxaa dhacday in odayadii reerka ay nebi saalax ku yidhaahdeen, haddaad buurtan dhagaxa ah noga soo saartid hal geela oo sifooyinkeedu sidaas iyo sidaas yihiin ayna riman tahay, cunugeeduna sifooyinkaasi leeyahay, waan ku rumaynaynaa. markaasuu nebi saalax ku yidhi, bal ka warrama haddaan idinka yeelo waxaad doonaysaan oo aan idin siiyo, ma aaminaysaan? waxay yidhaahdeen haa. alle subxaanahu wa tacaala ayuu bariyey inuu siiyo calaamadda ay ku xujeeyeen. markaasuu alle subxaanahu wa tacaala wuxuu buurtii dhagaxa ahayd amray inay soo saarto oo ay dhexdeeda ka soo baxdo hal riman oo 10 bilood xaamilo ah oo leh sifooyinkii ay weydiisteen. markii ay hashu soo baxday, yaab iyo amakaag ayay afka qabsadeen. kadibna nebi saalax ayaa ku yidhi, tani waa hashii alle ee daaya, ha daaqdo arliga ilaahay, xumaanna ha u geysanina si uusan cadaab idin haleelin. in yar oo ka mid ah ayaa nebi saalax rumaysay, intii kalena kibir ayay ka sii qaadeen iyo inay dhahaan waxani waaba sixir weyn. hashii waxay dhashay nirig. nebi saalax ayaa u sheegay in hasha ay la socoto shuruud ah ceelka in hashu ay maalin ka cabto, maalinta kalena ay reer Thamuud ka cabbaan, in hashu daaqdo meesha ay rabto, cidnana aysan dhibaato u geysan. way aqbaleen. muddana sidaasi ayay hawshu ku socotay, ceelka biyihiisana sidaasi ayaa loo kala qaybsaday. hasha maalin waa la waraabin jiray, maalinna way daaqi jirtay. maalinta ay cabbayso biyaha looma oggolayn inay dhaansadaan biyaha ama ay cabbaan. kadib waxay weydiiyeen rasuulkii ilaahay waxa ay cabbayaan. maalinta aan loo oggolayn inay dhaansadaan ceelka waxaa loo tilmaamay inay cabbaan caanaha hasha, waxaana ku filnaan jirtay caanaheeda maalintaasi oo dhan. muddo kadib ayaa kibirkoodii tusay inaysan macquul ahayn in hal neef oo geel ah ceelka maalin dhan loo daayo. duqaydii reer Thamuud ayaa shir isugu yimid, waxayna isku raaceen in hasha ay dilaan oo ay isdhaafiyaan si aysan ugu ciriirin biyaha. waxaa hawsha dilka loo xilsaaray nin la odhan jiray Qidaar binu Saalif oo ahaa mid isku darsaday shar iyo xoog badni. Qidaar markii hore arrinta wuu ka cagajiiday. duqaydii ayaa u diray haweenay aad ugu fiicnayd gubaabada, ninkeeduna madaxda reer Thamuud ka mid ahaa, waxayna u ballanqaaday haddii uu fuliyo arrinta dilka hasha in ay siin doonto mid ka mida 4 gabdhood middii dooqiisa ah. Qidaar wuxuu aqbalay qorshihii, wuxuuna diyaarsaday 8 nin oo hawsha la fuliya. Qidaar oo ay la socdaan 8dii kale ayaa u soo dhaqaaqay dhankii hasha. ugu horeyn Qidaar ayaa hasha faylaha gooyey, kadibna warankii ayuu ku dhuftay hasha ilaa ay dhulka ku dhacdo. kadibna intoodii kale ayaa warankii iyo mindidii ku bilaabay ilaa ay jirkeeda cadcad u googooyeen. markii hashii la dilay, nirigteedii waa ay carartay, waxayna fuushay buur dusheeda. 3 jeer ayayna qaylisay. nebi saalax waxa uu ku yidhi, waxaad sugtaanba waa 3 cisho. ma aysan rumaysan ballantii nebi saalax, balse kibirkoodii ayaa mar kale tusay dhagar kale. waxay ku dhaarteen inay dili doonaan nebi saalax calayhi salaam. kadibna waxaa la qorsheeyey in nebi saalax sidoo kale la dilo, hawshana ay fuliyaan isla 9 nin si arrinta uu wado oo dhammi ay halkaasi ugu istaagto. markii ay damceen inay dilaan, ayaa eebbe u soo diray dhagax weyn oo burburiyey intii damacday dilkii rasuulkii alle, waxaana ku dhintay isla goobtaasi 9kii dhagarqabe ee ka dambeeyey dilkii hasha iyo iskudaygii fashilmay ee ay ku doonayeen inay ku khaarijiyaan nebi saalax calayhi salaam. dadka intiisa kale ma toobadkeenin, balse si kibir leh ayay nebi saalax ugu yidhaahdeen, nookin cadaabka aad hayso. markii maalintii dhammaatay, reer Thamuud waxaa ku bilowday ciqaabtii alle. maalintii koowaad ee ballanka loo qabtay, wejiyadoodii waxay noqdeen midabka hurudda ama jaalle xigeenka ah. maalintii labaadna wejiyadoodii waxay noqdeen midab guduud ah. maalintii saddexaadna waxay wejiyadoodii noqdeen madow. waxay seexdeen iyaga oo aad u walwalsan oo aan aqoon waxa ku soo wajahan iyo waagu sida uu ugu baryi doono. maalintii afraad markii ay qorraxdii soo baxday, ayaa waxaa cirka kaga yimid qaylo iyo dhulka oo ku gariiray. waxaa asiibay cadaab daran oo kaga yimid xagga alle subxaanahu wa tacaala. qof walbana halkii uu joogay ayuu ku naf waayey. nebi saalax iyo intii rumaysay alle ayaa badbaadiyey, waxaana lagu amray inay u guuraan dhanka Shaam. raadadkii iyo guryihii ay ka tegeen reer Thamuud ayaa ah kuwo ilaa maanta muuqda. buurihii ay guryaha ka qodeen iyo dhismayaal ay xardheen ayaa weli ku yaala deegaanka Madaa'inu Saalix.
ee dalka Sacuudiga. Dhismayaashii reer Thamuud sida uu quraanku inoo sheegay 2 qaybood ayay ahaayeen. qayb dooxooyinka ayay ku yaaleen oo waxay ahaayeen qasriyo oo waa dhismo la baabi'iyey. qaybta kale waxay ahaayeen guryo deegaan ah oo ay ka naqshadeeyeen buuraha, waana kuwa ilaa maanta baaqiga ah. Alle subxaanahu wa tacaala ayaana uga tegey inay calaamad u noqdaan kuwa ka dambeeya. Ibnu Isxaaq wuxuu yidhi, rasuulka naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee, markii uu alxijri marayey uu ka degay, dadkana ceelkeeda ayay biyo ka soo dhaansadeen. markaasuu rasuulku naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee ku yidhi, biyaheeda waxba ha ka cabbinina, salaadna ha uga weyse qaadanina. sidoo kale ibnu haashim wuxuu yidhi, markii rasuulku naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee alxijri marayey, maradiisii ayuu wejiga saaray oo ku daboolay, hashiisiina waa uu dhaqaajiyey. kadibna wuxuu yidhi, ha gelina guryaha kuwa dulmiga falay idinkoo ooyaya mooyaane, cabsi aad ka qabtaan inay idinku dhacaan wax la mid ah wixii iyaga ku dhacay oo kale.